madashan oo lagu soo bandhigayay ciyaar dhaqameed dalal badan oo ay ardadooda wax ka bartaan dalka India gaar ahaan magaalada Hyderabad ee koonfurta dalka India ayaa waxaa soo qaban qaabiyay college ka yiraahdo Nizam College isla mar ahaantaana hoostaga jaamacadda Usmania University inkastoo ay dalal badan ka soo qayb galeen tartankan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigayay ayaa waxaa hadana qaaradda Afrika kaliya ka matalayay dalkeena Soomaaliya oo halkaas ku soo bandhigay ciyaaro aad u far badan oo ay daawadayaashii madaxdii ka soo qayb qaadatay ay aad ula dhaceen dhalinyaro uu soo qaban qaabiyay ururka ardayda iyo jaaliyada Hyderabad ee Surat ayaa halkaasi waxa ay ku soo bandhigeen wacdaro ayagoona dadkii ajnabiga ahaa ee daawanayay ay sheegeen in wiligood ciyaaro sidan oo kala aysan arkin markii la gaaray in masraxa ay soo koraan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa lagu soo dhaweeyay sacab ayagoona halkaasi ku soo bandhigay ciyaarihii hidaha ay u lahaayeen hadaba markii uu soo gabagaboway barnaamijka hidaha ee dhaqanka ahaa ayaa waxaan makarafoon kala dhaxmaray dhalinyaro matalaysay magaca Soomaaliyeed iyo waliba ka soo qaybgalayaasha Soomaalida ahaa ee halkaasi taageerada iyo dhiirigelinta u tagay magacaygu waa Sharax Sanuur waxaan maanta ka qayb galnay event lagu qabanaya Nizam College Usmania University waxa lagu soo bandhigay kala jarada runtii aad iyo aad ugu qayb galnay guulo waaweyn waan ka soo gaarnay aad iyo aad ugu faraxsanahay mar walba waxaan u joognaa in calankeena meel walba aan geeno bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdi Wali Cabdi dareenkayga Dakar waa mid aad boqolkiiba xasaasiyad maxaa yeelay waxaan noqonay dadku ugu fiicnay oo meeshan ka qayb gala Soomaaliya markii maanta meeshan waxaan kaga qayb galnay bandhig faneed oo ardada Soomaaliyeed ku soo bandhigeen jaamacadda Usmania University aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galno bandhigaas waxaana ka galnay kalimaha ugu horeeya Soomaalida joogta India cawada waxay ula muuqatay inay tahay farxad badan maxaa yeelay waxaan sameynay barnaamij la yiraahdo Annual Day oo ay qabatay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala wadanka India qof walba markuu arko ciyaarta waxa ka caysaniyadiisa qiiro gaar ay u leedahay qof kasto dhaqanka taqaanta runtii aad baan ugu faraxsanahay xafladan oo ka dhacday dalka India waxa uu ka qayb galay oo noqonay dadka koowaad aad iyo aad shucuurteedana lama soo koobi karo alxamdulillah rabbil caalamiin arintan ayaa waxay kor u qaadaysaa fahanka laga haysto magaca Soomaaliyeed iyo ardayda halkani wax ka barata Maxamed Cabdi Caynte magaalada Hyderabad dalka India